السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي ونكسن داوديال meel kasta dunida nagala socotaan waa maalinimo Arbacaha bisha February waa 16 sanada 2022 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah jabhadda Oromada oo meelo cusub jidgooyooyin hor la dhigatay iyo ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya oo ku sii wajahan meelahaasi xaaladda degmada u barreeyay deegaanka Soomaalida oo qasan kadib markii shalay halkaasi lagu dilay laba wiil oo degmadaasi ku sugnaa magaalada Muqdisho xalay weeraradii ka dhacay waxa ka hadlay taliska booliiska oo faahfaahin ka bixiyay weerarada halkaasi ay ku soo qaadeen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo xaaladda dalka Djibouti oo wali qasan kadib xilxilitaan lagu sameeyay wasiiro iyo waliba taliyayaal ciidan qodobadaasi qodobo kala faahfaahsan ay barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhay dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Oromada ayaa sheegaya in wali ay dhaqaaqyadii sii wadaan kooxda Oromada ah ee Ola isla markaana jidgooyooyin hor leh ay dhigteen meelo ku yaala deegaanka Oromada waxaana la soo tabinayaa in haatan ay kooxaha Oromada ah ee Ola jidgooyooyin fara badan u yaalaan deegaankaasi Oromiya iyada oo la soo tabinayo in magaalooyinka haatan ay aadka ugu sugan yihiin isla markaana ay jidgooyooyinka u dhiganayaan ay u badan yihiin magaalooyinka ku yaala xuduudka wadamada Kenya iyo Itoobiya iyadoo dawladaha dalka Itoobiya iyo Kenya ay shalay isku raaceen in la iska kaashado dagaalka ka dhanka kooxda Ola ayaa la soo tabinayaa in wali ay dhaqaaqyadu sii wado kooxdaasi isla markaana ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ay ku noqotay dagaalka Ola mid ku adag iyadoo kooxdaasi ay sameynayaan dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana aanay wax dagaal ah oo toos ah la galin ciidamada dawladda ee halkaasi weerarada ku baxsanaya jabhadaasi Oromada ah ee Ola ayaa la soo tabinayaa inay khatar badan ku hayso dadka Soomaalida iyo waliba dadka kale ee Itoobiyaanka ay isticmaalaya wadooyinka gala magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa isla markaana ka tagaya xuduudka ama wadanka dariska la ah ee Kenya guud ahaan deegaanka Soomaalida ayaa xuduud dheer la leh ismaamulka Oromiya waxaana mar walba ka talaaba xuduudkaasi dad Soomaaliyeed oo u socda gudaha gobolka Oromada iyo waliba caasimadda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa waxaana la soo tabinayaa in wadooyinka mara deegaanka Oromada lagu arkayo ciidamo ka tirsan kooxdaasi Oromada Ola wada kasta oo la isticmaalana ay joogaan ciidamadaasi waxaana ciidamada dalka Itoobiya ay wali la daaladhacayaan in kooxdaasi la soo afjaro iyadoo ay u muuqato inay adag tahay in kooxdaasi si dhayal ah loo soo afjaro oo weerarada ay sameynayso iyo waliba istiraatiijiyadda ay haatan isticmaalayso wadooyinka ay istaagayaan ayaa la soo tabinayaa in ay dadka ka qaadayaan canshuur iyo waliba baabuurta halkaas isticmaalaysa iyagoo dadka qaarna u dilaya si arxan darro ah taniyo markii ay weeraradaasi bilaabeen kooxdaasi Ola ayaa la soo tabinayaa in dad fara badan lagu leeyahay wadadaasi isla markaana aan la ogeyn meeshii ay jaaniya cirib dhigeen dadkaasi la leeyahay waxaa kamid ah dad Soomaaliyeed oo wadooyinkaasi isticmaalay isla markaana kooxahaasi Oromada gacantooda ku maqan kooxdaasi Ola ayaa haatan dhaqdhaqaaq xooggan ka wada ismaamulka Oromada iyagoo caqabad xooggan ku haya magaalooyin waaweyn oo ku yaala ismaamulka Oromada oo ay ka mid yihiin magaalada Shashamane oo dad fara badan oo Soomaali ah iyo waliba dad Oromada iyo waliba kuwa kale oo Itoobiyaan ah ay aad u isticmaalaan wadooyinkaasi magaalada Shashamane oo ay marto wada si aada magaalada caasimadda ah ee dalka Itoobiya ayaa la soo tabinayaa in kooxahaasi ay fara badan ku hayaan isla markaana ay jidgooyooyin xoog leh u yaalaan hareeraha magaaladaasi haatan aan eegno degmada u barreeyay deegaanka Soomaalida oo shalay lagu dilay laba wiil oo dhalinyaro ah isla markaana ciidamada ammaanku ay halkaasi ku dileen ayaa la soo tabinayaa in xiisad ka dhalatay ay wali taagan tahay isla markaana ay sii xoogaysanayso waxaana shalay magaaladaasi ka dhacay mudaharaadyo xooggan oo rabshado watay isla markaana laga soo horjeeday dilka labadaasi dhalinyarada ah waxaana la soo sheegayaa in ilaa iyo xalay ay socdeen rabshadahaasi isla markaana ciidamo fara badan oo halkaasi la geeyay ay rasaas xoog leh ku ridayeen dadka halkaasi ku mudaharaaday
waxaana rasaasta la maqlayay xalay ilaa saqdi dhexe iyadoo waaberigii maantana lagu waabariistay in weli xiisadu ay taagan tahay islamarkaana ciidamo fara badan halkaasi la geeyay oo deegaanka soomaalida ka socday ciidamadaasi oo ah kuwo ka mid ah liu booliska ayaa la tabinayaa in ay degmadaasi ku sugan yihiin islamarkaana xiisadu ay u muuqato mid cirka isku sii shareeraysa iyadoo dadka deegaankuna ay aad uga cadhaysan yihiin dilka loo geystay labadaasi dhalinyarada ah islamarkaana ka dalbaday in cadaaladda la keeno cid kasta oo loo kula dilkaasi degmada Awbare oo ku taala meel aan ka dheereen caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga islamarkaana xuduud dhow la leh deegaanka kale ee Somaliland ayaa la soo tabinayaa in xiisadeedu ay tahay mid halis ku ah caasimadda iyo weliba amniga deegaanka Soomaalida ciidamo fara badan oo ka socda liu booliska ayaa degmadaasi ku sugan iyo weliba kuwa federaal ah oo mar dambe halkaasi tagay iyadoo xiisada deegaamadaasi ay halis ku yihiin guud ahaanba amniga deegaanka waxaana haatan la soo tabinayaa in la wado dadaalo lagu dejinayo xiisada halkaasi ka taagan iyadoo deegaanka Soomaalida caasimadda laga diray dad fara badan oo la rabo in ay xiisadaasi hakiyaan islamarkaana dadka deegaanka ee aadka u xanaaqsan ay dejiyaan oo ay u tilmaamaan inay ka helayaan dowladda deegaanka Soomaalida cadaalad iyo waliba in dhalinyaradaasi cid kasta oo lug ku yeelata la soo qabanayo haatan anigna magaalada Muqdisho xalay ay ka dhaceen weeraro isxigxigay iyo waliba qaraxyo xooggan oo laga maqlayay meelo badan oo kamid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana degmooyin kala duwan weeraradaasi lagu qaaday ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa soo bixinaya ciidamada booliiska Soomaaliyeed isla markaana waxa ay ka hadleen wixii xalay ka dhacay caasimadda afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay gobolka Banaadir Gaashaanle Cabdi Fataax waxa uu sheegay in weerarka ka dhacay degmada Kaxda loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagu soo raray ciidamo gurmad ah oo booliiska ayuu tilmaamay in lagu xoojiyay askartii joogtay saldhigga isla markaana ay iska caabiyeen weerarkaasi Cabdi Fataax Xasan Aadan afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal xigay weerarka lagu soo qabtay Daarusalaam kuwa uu ku tilmaamay in ay qayb ka ahaayeen dagaalka ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa intaas ku daray in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dad rayid ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar kale oo ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee magaalada Muqdisho afhayeenka ayaa sidoo kale xaqiijiyay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo nolosha lagu qabtay kuwaas oo uu sheegay inay soo bandhigi doonaan dhinaca kale kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa sheegay in weeraradaasi ay qaadeen isla markaana ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala degmooyinka Kaxda iyo Daarusalaam isla markaana halkaasi sida ay sheegeen ay saacado kooban ku sugnaayeen ciidamada dowladana ay u diideen inay soo galaan gudaha deegaamadaasi guud ahaanba qaraxyada iyo waliba rasaasta xooggan ee dhacaysay saqdi dhexe ee xalay magaalada Muqdisho ayaa dad fara badan oo magaalada ku nool hurdada ka kicisay isla markaana laga maqlayay guud ahaanba magaalada caasimadda ah haatanna dalka Djibouti xaaladda dalka Djibouti ayaa u muuqata mid qasan kadib markii halkaasi taliyaal ciidan iyo waliba qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Geelle lagu xidhay isla markaana looga shakiyay in halkaasi ay ka sameynayeen inqilaab xukuumadda Geelle ayaa la sheegay in ay haatan ku jirto feejignaan xooggan isla markaana dad fara badan ay xabsiga ku gurayso wixii ka soo kordhay xaaladda Djibouti waxaan idin kula socodsiin doonaa barnaamijyadeena dambe haddii ay baydmo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo